ciyaartoyga caanka ah ee Neymar ayaa la dagaalamaya fadeexado culus oo uu wajahayo ciyaaryahankan kadib markii warbaahinta caalamka ay baahiyeen warbixin la xiriirta in haweeney uu kufsaday. Xidiga kubadda cagta ee dalkaasi Brazil ka soo jeeda ayaa beeniyay eedaha la xiriirta in haweeney kufsi u geystay magaalada Paris. dacwad loo gudbiyay ciidanka booliiska ee magaalada Paris ayaa haweeneydan kufsiga ka cabanaysa u sheegtay in falkan uu ka dhacay hotel ku yaala magaalada Paris halkaas oo ay ka dhisantay kooxda Paris Saint-Germain oo ciyaaryahankan u ciyaaro. ciyaaryahankan Neymar asagoo isku dayaya inuu cadeyn buuxda ka bixiyo waxa dhacay ayuu waxa uu soo bandhigay qoraaladii ugu dambeeyay ee WhatsApp-ka isku wadaarsadeen asaga iyo waliba haweeneydan hadda ku eedeynaysa inuu kufsiga u geystay. ciyaartoygan ayaa hadda ku sugan wadankaasi Brazil wuxuuna la tababaranaya xulka qaranka dalkiisa kuwaas oo isku diyaarinaya ciyaarta ama koobka America. maxay tahay eedeymaha loo soo jeediyay ciyaaryahanka? sida ku xusan xogta booliiska, haweeneydan oo aan magaceeda la shaacin ayaa waxay Neymar ka baratay barta lagu xiriiro ee Instagram-ka wuxuuna ka codsaday inay ku kulmaan magaalada Paris. waxa uu ka bixiyay lacagta ay ku raacday diyaaradii ka soo qaaday magaalada ku taala dalkaasi Brazil ee geysay wadanka Faransiiska wuxuuna dejiyay hotel qaali ah oo ku yaala bartamaha magaalada Paris. markii Neymar ay tagay hotelka 15kii bishii May waxa ay haweeneyda sheegtay inuu cabsanaa Neymar. markii ay wada hadleen oo ay ismaan dhaafeen Neymar waa uu xanaaqay wuxuuna sameeyay qalalaaso asagoo damcay in xiriir dhanka jinsiga uu la sameeyo haweeneydan oo aan raali ka ahayn falkaasi. waxaana sidaas lagu yiri qoraal ka soo baxay booliiska. qoraalkan oo la sii ambaqaaday ayaa waxa lagu yiri 2 maalmood kadib haweeneydii waxa ay ku laabatay Brazil iyadoo aan dhacdadaasi ku wargelin ciidanka booliiska ee dalkaasi Faransiiska. sababta ugu weyn haweeneydan dhacdadan isan u shaacin waxa ay booliisku ku shaaciyeen inay ka baqday fadeexado inay wajahdo. haddaba arintan muxuu ka yiri ciyaaryahanka Neymar? bayaan ay soo saartay kooxda maamulka oo u ciyaaro ciyaaryahanka Neymar ayaa waxay cambaarayeen sheegashada been abuurka ee lagu eedeynayay xidigooda ka tirsan kooxdaasi ee Neymar waxayna aad kaga caroodeen arinta foosha xun ee warbaahintu ay baahisay. war-saxaafadeedkan ayaa waxaa lagu sheegay in haweeneydaasi ay doonaysay in lacag badan ay ka qaadato ciyaaryahanka Neymar ayagoona marmarsiyo ugu dhigtay in uu kufsi u geystay. Neymar qudhiisa ayaa si toos ah arintani kaga hadlay wuxuuna sharaxaad ka bixiyay muuqaal 7 daqiiqo oo soo duubay oo ku sharaxayo sida wax ku dhaceen isagoo muuqaalkaasi soo dhigay bartiisa Instagram-ka. muuqaalkan oo soo dhigay ciyaartoygan oo aan weli guursan ayaa waxa uu soo raaciyay qoraal ku qornaa luqadda Boortaqiiska oo micnihiisu ahaa lacag baad ah oo la iga rabay awgeeda waxaan ku qasbanahay inaan soo bandhigo arrimaha qaaska ah ee ku saabsan aniga iyo waliba qoyskayga ayuu sii raaciyay xidigan qoraalka. Neymar aabihiisa oo lagu magacaabo Neymar dos Santos ayaa sidoo kale gaashaanka ku dhuftay eedeymaha wuxuuna sheegay in ay iska caddahay arintan inay tahay mid dabin ah oo wiilkiisa loo dhigay. Neymar diyaar ayuu yahay inuu ka qayb qaato koobka America ee xulkiisa qaranka ee Brazil uu ciyaari doono. ciyaaryahanka kooxda Paris Saint-Germain ayaa hore waxaa looga xayuubiyay kabtanimada xulka qaranka Brazil talaabadaas oo qayb ka ahayd caqabada dhinaca anshaxa ah ee ciyaaryahankan la marsiyay. dhinaca kale mas'uuliyiinta xiriirka kubadda cagta ee dalkaasi Faransiiska ayaa waxay xidigani ka mamnuuceen 3 ciyaarood kadib markii uu feer ku dhuftay qof kamid ah taageero markii kooxdiisa ay bishii la soo dhaafay guul daro qaraar ah ay kala kulantay kooxda la yiraahdo Rantos oo ay la ciyaarayeen finaalka tartanka koobka kamid ah koobabka laga dhigo dalkaasi Faransiiska. waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa inuu qayb ka ahaa buuqi ka dhacay qolka labiska ee ciyaartoyda kooxdaasi Paris Saint-Germain. tartanka koobka America oo ay ku lolamayaan dalalka koonfurta America ayay Brazil qayb ka tahay koobkaas ama ciyaarahaas oo bilaaban doona 14ka June ilaa 7 bisha July. Neymar ayaa hogaamin doona xulka qaranka dalka Brazil. Neymar ayaa ku soo laabtay xerada tababarka ee kooxda Brazil kadib markii dhaawac yar uu ka soo gaaray jilibka. fadeexadahan waaweyn oo ciyaaryahanka ayaa saameyn weyn ku yeelan kara qaab ciyaareedkiisa iyo waliba sumcadda uu ku lahaa kubadda cagta.